kulanti wanaagsan daawadeel ku soo dhawaad qodobada ka arrimaha siyaasadda Soomaaliya kuwada ugu doorka ah General Wajiid hore oo dalka ka jeediyay qodobada badan taabanaysa xilli ka sinta saacado qaban in xilka laga qaado wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idin garab taagan yahay way idin la garab taagan yihiin waa inay ku taakulay doonaan ciidanka Ilaahay waxa naga la rabaa garasho dib waxa mahadoo dhan u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan inoo suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa ay dhan mahad u sugnaatay dhammaan ciidamada qaranka shacbiga Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xureynta deegaanka fasirdoon oo laga helay si loogu fuudeeyay shabkii awar hotel Hayaat iyo Fadazino fishiliye niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay khataraha ugu waaweyn ee ka hortagto argagixisada gaar ahaan al-shabaab ما سلامنا حرير وين بقول لي مدة دار وسديت سنة 8 سنة كله بابور تقرحيده مجال هذا السوق اليوم ضد با سوق اليوم شباب ما هنين إندلاء أو إسكت سعودة ما ضد كاس إندلاء أو إسكت سعودة أو ميل سقط فنية ما ضد با عاوية فاسيليتيشن كوسمية ضد كاس عاوية أو شقيون كمدي وحيابه وين هذا الكلام بكجست وحسانات دكوا جبني في الصومالية ومنوع دمان شغالها دولة يعبس سوى جهدي دولة حسين محمد مدحوين حسين محمد رئيس وزراء أحمد سعود برا وقان كقال استراتيجية دقال وجهه دقال ماشي على الشباب هي غيبة كمدة قد بدأ عيادين كوسوك بدونا ضغط على السوق اللتين كلن كأسعد كلها وسيرة iyo qodobada diirada lagu saaray intii sugu doona intaas oo qodobada ugu doorka warka ayaga minkan u dirgabay oo dhameysan ayna ku bilan taliye ciidanka xoogga Soomaaliya General Wajiid Firaaga waa saacadaha soodan lagu wada in xilka la qaado xilkan la qaajin waxa ku saadaysa iyadoo xaaladda kacsan wadanka ka jirta samarkaana al-shabaab dagaal toos ah la galeen ciidamada dowladda ku sugan jiido hore dalka General oo qodobada nacban taabanaysa ka jeediyay jiido hore dalka ayaa wax sheegay inay samarkaan hili hawl garab joogaan ciidamada mujaahidiinta ee dowladda Soomaaliya naftooda iyo maalkooda u hore qaranka Soomaaliya si u difaacayeen haddaba waa kan General oo kala arrimaha wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idin garab taagan yahay way idin la garab taagan yihiin waa inay ku taakulay doonaan ciidanka Ilaahay waxa naga la rabaa garasho dib waxa mahadoo dhan u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan inoo suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa ay dhan mahad u sugnaatay dhammaan ciidamada qaranka shacbiga Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xureynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkaan u nimid waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday waqti ka munaasabsan waqtigan oo wajiyadeeno dhan is arki karaan inaan imaado laakiin nooma suurta galin ayadana waqti kale dib isugu soo laaban doonaa ma noqon doonto ciidanka Ilaahay waqtiga ugu dambeeyay oo halkaan ku wada kulanno waqtigan meel kale iyo waqtiyo kale ayaan wada kulmi doonaa hadii Ilaahay ogolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaan caawa halkaan idinku nimaado idinku yimaadin mas'uuliyiintii dawladda oo qaybaha kala duwan ee dawladda ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin waqtigan inaan idin nimaado oo halkaan idinku nimaado waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jiro nimanka mujrimiinta ah ku shahiiday inta ku dhaawacantana waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga oo uga wanaagsan xurriyadda iyo amniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiga waxa ugu horeeya ee inay hesho ay muhiim ka tahay waa amni inta ka dambaysa kadib aad ka fikiri kartaa cunno kadib aad ka fikiri kartaa caafimaad kadib aad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kale kadib aad ka fikiri kartaa laakiin amni hadaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri kartaa haba yaraatee mal amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horeeya ee inaad hesho aad u baahan